maalin wanaag saaxiibayaal meel baa joogtaan magacayga waa qaliji haddii weli aaminsan tahay in wadanka Jarmalka uu yahay wadanka ugu nidaamka caafimaadka fiican adduunka weli ray ayaa ku jirta videogan daabo aniga ayaa ku sharxi doona marka hore hadaan ugu cusubtaan lagu soo bir dad badan waxa jiro oo wadanka Jarmalka maangeli ugu dalbado si ay caafimaad u helaan dadkaas waxa kamid ah Soomaali badan oo dagaaladii ka socda dalka dhibaatooyin waaweyn ka soo gaaray oo qaarkood jirkooda xabado ay ku jiraan ama firir ay ku jiraan qaar waxa jira maskaxda firir ugu jiro qaar waxa jira curyaamin ah qaar waxa jirto xubnaha jirka qaarkood dhibaatooyin qaas ka qabo qaar kaliya laga dhaqo iyo cudurro kale oo kala badan marka ugu horeyso Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ugu barino in qof walba oo xanuunsan oo caafimaad taam ah oo siiyo qaar kamid ah dadkaasi oo Soomaalida ah ee wadankan u imaaday inay caafimaad helaan qaar kamid ah Ilaahay sida ay rabeen uu fududeeyo caafimaad ay wadankan ka heleen laakiin waxa jirto Soomaali kale oo badan oo waxa ay wadankan ka rajeynayeen aysan ka helin caafimaadka iyo sida ay hamiga ay lahaayeen iyo waxyaabaha ay rajeynayeen aysan qaarkood aysan helin maadaama Ilaahay subhanahu wa ta'ala horta uu yahay qofka caafimaadka asiga bixiyo laakiin waxa jirto sababo qaar ah oo aan rabo maanta inaan tala ahaan dadka qaar ah u siiyo inta aan u gudbin mowduuca ku saabsan sababta wadanka Jarmalka uu yahay oo san u ahayn wadamada adduunka ugu nidaamka caafimaadka fiican marka hore hadii qorshaha uu yahay in wadankan ay imaado isla markaan u imaadid si aad caafimaad u heshid waxa rabaa inaan ku sheego in xanuunka adiga ku hayo oo san ku naqanin kiis qaxooti yani marka wadankan imaadid waxa maraysa process qaxooti maraysa oo ah in interview laga qaado interviewgaas laga qaaday waxa lagu qiimeynayaa in wadankan xaquuq qaxootinimo ku laha karsi in kale tad marka in aad xanuunsan tahay oo xanuun ku hayo ama cudurro qaar ay ku hayaan ama ina indhoolo tahay ina curyaan tahay in kaliya ku xanuun ina xabad kugu jirto waxyaabo la mid ah ma ku naqato kiis qaxootiga kuma naqdo si aad maangeli u dalbatid waxa u baahan tahay in aad sheegato dhibaato adiga kugu soo dhacday isla markaana hadii maanta wadankaaga lagu celiyo dhibaatadaas ay ku qabsan karto marka dhibaatooyinkaas in adiga curyaan tahay in oo cudurro qaas ah qabtid in fir xabad maskaxda kaaga jirto waxyaabo la mid ah ma ku naqato kiis qaxooti ah oo kiiskaaga ama programkaaga qaxootinimada ah lagu aqbali karo ma naqon karto waxa u baahan tahay program oo adiga shakhsiyan dhibaato ku soo keenay dhibaato wadankaada ka soo gaartay isla markaana hadii maanta wadanka lagu celiyo dhibaatadaas ku qabsan karto laakiin aad dhibaato cudurro qaar ah qabtid iyo waxyaabo la mid ah marnaba kuma naqdo kiis qaxooti wadankan waa laga yaabaa dhaawacyada qaar ee jirkaada ka muuqdo inay caawiyaan kiiskaaga qaxootiga ama programkaaga laakiin in aad kaliya xanuunsan tahay marnaba ma ku noqdo kiis qaxootiga wadankan maangeli ugu dalban kartid tan kale waxay tahay oo aan labaad arab in aad sheego inta kiiskaaga qaxootiga oo socdo waxa iska ilaalisaa mar walba in aad baahiyaha cudurrada aad qabtid aad isla markii aad isku daydana iska daaweysid maxaa yeelay kaamka markaa ku jirtid waa aragteen inta badan waxa way kaamka isbitaal ku yaalo qaar badan isbitaal tagaan ayagoo rabo in cudurradii ay rabeen maskaxda firir kaga jiray iyo dhaawacyadii iyo wixii dhan ay rabaan in kaamkaas iskaga xaliyaan laakiin inta badan uma suurta gasho markii ay kaamka tagaan sababta weyn ugu suurta galeen waxay tahay su'aasha ugu horeyso oo qofka la weydiinayo waxay tahay cudurkan aad sheeganaysid meeqa sano ku haya marka hadii marba bilo badan aad sheegto iyo sanadooyin aad sheegto inta badan dhaqaatiirta meesha joogto kiiskaaga way soo xiraan sababta soo xiraan wax kale ma ahan kaamka dhaqaatiirta joogta kaliya waxay daawayaan waxay tahay cudurrada oo emergency ah waxyaabo emergency u dhaco oo adoo saakis ka joogta cudur la soo boodo wax saacado kor camal ku soo dhaco qofka ku dakhray waxyaabo la mid ah macnaha ama cudur degdeg ah kugu soo boodo adoo kaamka iska joogta adoo waxyaabaha oo degdeg kugu soo dhaco baa lagu daawayaa inta badan kaamka isbitaalada ku yaala hadhow markii kaamkaas borsaskaada ka dhamaado oo lagu xabilo kadib waxaa heli doontaa kar caafimaad oo adiga shakhsi ah u leedahay adigana markaas dhakhtarka u baahan tahay ee dhibaatooyin ku haysto u tagi karo balanka qabsan karo baahiyahaaga caadigana u sheegan karo adigana markaas isku daaweyn karto marka waxaan kula tali lahaa inaad marka ugu horeyso aadan borsaskaada iyo cudurrada ku haysto iyo xanuunada ku hayo inta aad kaamka ku jirtid aadan u soo bilaabin oo markii aad kaamka ka baxdid oo karka caafimaadka lagu siiyo in aad markaas qof turjubaan ka haysid hada dhaqaatiirta magaalada lagu geeyo markaasna aad dhibaatooyinka adiga markaas ku haysto aad kala hadashid oo sidaas borsaskaga caafimaadka uu ku bilaabmo laakiin aad marnaba inta aad iska ilaalin kartid iska ilaalisid inta aad kaam ku jirtid in cudurrada khaaska ah aad banaan ku soo bandhigto maxay yahay kaamka isbitaalada ku yaala kaliya waxay daawayaan cudurrada emergency ay daawayaan waxyaabaha degdega dadka ugu dhaco haddaba marka waxa laga yaabaa adigu hadda magaalada joogtid lagu soo xawilay oo karka caafimaadka haysto in aad weli heli laadahay dhakhtar qoseeya
cudurrada adiga markaas ku haysta. sababta videoga maanta u duubayo waxaan rabaa in halkan kula wadaago sababta wadanka Jarmalka oo san u ahayn wadanka ugu nidaamka caafimaadka fiican adduunka. hay'ad lagu magacaabo The Euro Health Consumer Index oo sanad walba soo saarto wadamada ugu nidaamka caafimaadka fiican qaaradda Yurub ayaa sanadkii la soo dhaafay ee December 2025 waxa ay soo saartay 10 wadan ee ugu nidaamka caafimaadka fiican qaaradda Yurub. qaalinta koowaad waxaa ku jirta wadanka Switzerland, labaad waxaa ku jirta Netherland, saddexaad Norway, afraad Denmark, shanaad Belgium, lixaad Finland, toddobaad waxaa ku jirta Luxembourg, sideedaad waxaa ku jirta Sweden, sagaalaad waxaa ku jirta Austria ama Österreich, tobanaad waxaa soo galaya Iceland, 11aadna Faransa, halka kaalinta 12aad oo soo bixinayo wadanka Jarmalka. sababaha ku qiimeeyeen waxay ku sheegeen saddex qaybood. qaybta koowaad waxay dhaheen waa vartsite-ka sugitaanka qofka uu sugayo dhakhtarka khabiirka ku ah cudurka qofkaas haysto. tan labaadna waxay ku sheegeen hoya behandlingsqualität tayada sare ee daaweynta. saddexaadna moderne medizinische infrastructure oo ah kaabayaasha caafimaadka casriga ah, yani in isticmaalka qalabada modernka ah oo hadda adduunka laga isticmaalo. marka waxay dhaheen saddexdaas qaybood ku qiimeeyeen dhaheen si ay u kala fiican yihiin wadamada adduunka ugu nidaamka caafimaadka fiican. haddii aad Jarmalka fiirisid marka saddexda qaybood, qaybta ugu horeysa oo ah sugitaanka qof walba aniga naga mid ah runtii inuu dareemi karaan rajeynaya. wadanka Jarmalka marka xanuunsid waxaa tagaysaa house arts ama dhakhtarka guriga, kaas ayaa ku qiimeynayo marka ugu horeyso. waxaan adag marka in kaas oo ku soo gudbiyo dhaqaatiirta isbitaalisiyaasha inuu ku soo gudbiyo ama kuwa khabiiriinta inuu ku soo gudbiyo ayaa adag mar walba. oo waxa laga yaabaa marka u tagtid inuu 2 isbuuc ku dhaw daawooyinkan hoos soo isticmaal, 2 isbuuc ka bacdi soo laabo, marka soo laabatana ka bacdi daawooyinkii kor lagu sii kordhiyo oo asiga muddo badan oo ku haysta micnaha. markii dambe oo ku fasaxo asiga marka waxa adag marka dhakhtarka khabiir ku ah marka cudurka adiga ku haysto in aad holo balan aad ka heshid, in asiga balan ka heshid ba inta badan waqti badan qaata. hadii oo sheekada operation ay tahayna waxa laga yaabaa sanadka hadda tan ku jirnay 2026 in aad jaanis aad helin operation ugu sameeyo oo isbitaal dhahay balamaha dhan operationka magaalada in ay buuxaan ba laga yaabaa. laakiin markii ay emergency tahay marka laga tago micnaha soo marka waa sababaha marka oo sugitaanka wadanka Jarmalka in aad dhakhtarkaaga khabiirka ah oo specialistaha ah la kulantid oo inta badan ay aad u adag tahay micnaha oo waqti badan ay kugu qaadanayso. waana sabab ay ku qiimeeyeen waxay leeyihiin wadamadan kale todo kale haddii aad balan aad heshid sida ugu dhaqsiyaha badan balmaha ku heli kartaa ay leeyihiin. laakiin wadan walba marka oo aad sida ugu dhaqsiyaha badan balan u heli kartid kaalinta koowaad ku jira kii oo balamihiis aad u liitan wuxuu ku jira ay leeyihiin kaalinta hoos u soconaan micnaha halka kaalinta labaad maadaama Jarmalka ku jiro. tan labaad hoya behandlingsqualität tayada sare ee daaweynta runtii ayadana qayb weyn ka tahay wadankan Jarmalka. dhaqaatiirta khabiiriinta ah oo well qualified ka ah oo aad u khatarta ah wadankan way iskaga tageen. waxay ka shaqeeyaan wadamadan kaalinta koowaad ku jira ka shaqeeyaan. dhaqaatiirta ugu fiicnaa Jarmalka waxay ka shaqeeyaan Switzerland ka shaqeeyaan, waxay ka shaqeeyaan Norway, Scandinavia kana u shaqo tageen. qaarkood waxay ka shaqeeyaan wadamadan Carabaha. marka tii Carabaha isbitaalada ugu casrisan waxa jooga waxay tahay dhaqaatiir Jarmal ah, waa dhaqaatiirta ugu fiicnaa kuwa hadirtan ma ku dhahay wadanka Jarmalka waa xun yahay caafimaadkiisa no ma aan wadamada ugu fiican ku jira. laakiin marka wadamadan loo fiirsho dadkiisii oo qabiilinta ah oo aadka loo yaqaanay inta badan way iskaga tageen wadankan. waxa jooga hadirta inta badan kuwa aanan oo macnaha u qalmin kuwii hore micnaha saas darteed marka waxay leeyihiin marka tayada daaweynta saasay liiskaas ku jirta iyo moderne medizinische infrastructure qalabada isticmaalayaan isbitaalada qaarkood marka tagtid qalabada isticmaalaya inta badan casri modern ma aha. modernka sanadkan adduunka hadda la isticmaalo lagama isticmaalo mararka qaar oo mashiinadii hore isticmaalaan qaarkood waa halaysan yihiin oo wax lagu bedeli laayihiin oo waxa maqan qarashaadkii dhaqaalihii markaas lagu bedeli lahaa mashiinada qaar kuwa mashiinada ugu fiican inta badan waxay yaalaan isbitaalada privatka ah yaalaan oo qofka asiga lacagtiisa la baxa. isbitaal badan oo privat ah jira wadankan oo casri ah modern ah oo laakiin aanan qofka iskiis lacag iska bixinaa micnaha ama oo privat kalankaas oo haysta micnaha oo ka duwan tahay. soo marka ay intaas qaybood ku qiimeeyeen saddex qaybood marka Jarmalka si goon u fiirsadina micnaha waa arin aad u saameynaysa run ahaantii. tan kale marka dhanka dhaqaalaha fiirno wadankan waa wadanka qof walba qofka kale intuu ka lacag badan yahay
wuxuu bixinayaa lacag badan ee kaarka caafimaadka. Tusaale ahaan qofkii 2,000 oo euro bishii soo gasho iyo kan 10,000 oo euro soo gasho isku lacag ma bixinayaan, oo waxaa lacag badan mar walba kan lacag 10,000 soo gasho waa lacag badan kaarka caafimaadka bixinaya, laakiin labadooda hal service bay wada helayaan. Adiga oo 10,000 oo ku soo gashay oo lacag badan laga soo goostay iyo kan 2,000 soo gashay lacag yar laga gooyay, labadiin hal service wada helaysiin oo hal meel wada tagaysiin oo hal balna wada qabsanaysiin. soo marka ayadana caqabad wadamada horumar adduunka dhan kama jirto barnaamij noocaas ah. wad qof walba qofku kala lacag badan yahay wuxuu ka heli karaa service qofkaas kale kasii casrisan kasii modernaysan oo heli karaa macnaha. laakiin ma ku jiraan barnaamijkan dadka oo private partition ku jiraan, kuwaas kiiskooda waa ka duwan yahay oo maadaama ayaga ay lacag gooni ah ay bixiyaan oo lacag badan aad u soo gashay, ayaga kiisankooda waa ka duwan yahay. laakiin kuwan kale oo partition ku jiro mar walba lacag badan ay ku soo gasho, lacag badan ayaa kaarka caafimaadka bixinaysa, dad kale toodna service la mid ah ayaa helaysa. marka waa sababaha ugu waaweyn ee ku cadeynayso in wadanka Jarmalka oosan ahayn wadanka adduunka ugu caafimaadka fiican, taasoo Soomaali badan runtii ay aaminsan yihiin. hadduu video wax macna ku keenan like sar inta kulan ku xiiso badan kulmi doona Khaliij ah fi amaan Allah.